السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo sidii caadada inoo ahayd idii soo gudbin doona barnaamijyadeeni taxanaha ahaa ee ku kala duwanaa. Waxaan marka hore idinka raali gelinayaa dhammaan bulshada igu xiran. Waxaan ka raali gelinayaa yar iyo weyn, dhalinyaro iyo waayeel, caruur iyo ciroole, dhammaantiin waxaan idinka raali gelinayaa aniga oo aan in muddo ah haba yaraatee aan wax fiidiyow ah soo gelinin YouTube-ka Nuuriye YouTube. aad iyo aad baan uga xumahay arrintaa. runtii waxay iska ahayd rabadaantii iyo xanuunkan koronaha oo dunidii oo dhan ku fiday, oo isu imaatinadii iyo meelihii lagu kulmi jiray iyo wixii oo dhammi aanay jirin. aad baan taa uga cudur daaranayaa. marka labaad waxaan maanta insha allahu tacaala idii hayaa qiso ka mida qisaska aadka u layaabka badan ee ku saabsan madaxda muslimiinta ayaan idii hayaa maanta. qisadani runtii waa qiso dhex martay ninkii la odhan jiray Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi iyo waxay dhex martay nin la yidhaahdo Kalthuum ibn al-Aqarri. labadaa nin bay dhex martay oo labaduba ka tirsanaa dowladdii Amawiyiinta ee uu maamulkeeda hayay ama uu amiirka ka ahaa Cabdilmalik ibn Marwan. Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi sidaynu hore uga soo sheekaynay wuxuu ahaa nin ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu mayalka adag dowladda Amawiyiinta ayuu ka mid ahaa. gaar ahaan wuxuu ahaa u qaybsanaha qaybta Baghdad. Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi ninkaa la odhan jiray oo runtii ahaa nin aad iyo aad u geesi ah, laakiin mabdi'iisu uu aad iyo aad u adkaa oo maxaanku dhahdaye dee qisaskiisa aynu ka dharagsannahay. had iyo jeer waxay tidhahdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa laba awroo qoori geel kuma heshiisa baa la yidhi. ninkan la yidhaahdo Kalthuum ibn al-Aqarri wuxuu ahaa isagu nin halyeeya oo hogaamiye ah oo hal adag oo howlkar ah. intaasoo sifo oo raganimadu ay leedahay buu isku darsaday. Xajaaj bin Yuusufna dee wuxuu ahaa ninkaa dhiggiisa waabuu kasii daraaba. haddaba ninkan la yidhaahdo Kalthuum ibn al-Aqarri waxa u sii dheerayd intaasi. wuxuu ahaa nin aad iyo aad u fahma iyo maskax furan. wuxuu ahaa nin dhibaato kasta oo timaada had iyo jeer markiiba dadka ilaahay surcatul fahmiga siiyey buu ahaa, ama degdega wuxu fahma ee marka ay dhibaato kadisi ihii timaado isla markaba xal ka gaadha ee arrintii u hela furdaamin iyo sidii loo furfuri lahaa. Xajaaj bin Yuusuf maadaama uu ninkaasi yahay nin ka mida maamulka Cabdilmalik ibn Marwan, isna uu ku jiro maamulka, wuxuu aad ula coloobay ninkaa Kalthuum ibn al-Aqarri ayuu aad iyo aad ula coloobay. dabeetana wuxuu soo dabaray Xajaaj bin Yuusuf xeelad buu ninkii u sameeyey. wuxuu u daadiyey dabin, wuxuu u dhigay dabin. dabeetana waxaa ninkii lagu xukumay dil. xukuumaddii Cabdilmalik ibn Marwan waxay ku xukuntay Kalthuum ibn al-Aqarri in ninkaa qoorta laga gooyo maadaama uu gafka noocaasa galay. gafkaasina wuxuu ahaa gaf propaganda ah oo aan run ahayn, oo ah maxaanku dhahdaayey xeelad uu u dhigay Xajaaj bin Yuusuf si uu uga takhalusan ninkan oo uu isagu ugu kaliyeysto raganimada, aftahannimada, hogaaminta, halyeynimada, howlkarnimada iyo dhammaan ahdaafta nolosha oo dhan inuu keligii ku kaliyeysto oo aanay cidina la wadaagin. Xajaaj wuxuu ahaa nin aan jeclayn had iyo jeer inuu qofku yidhaahdo waxaase sidaa aad sheegaysa maahee taliya sidaasaa ka wanaagsan. markii lagu xukumay Kalthuum ibn al-Aqarri, markii dilka lagu xukumay Kalthuum ibn al-Aqarri hooyadii waxay ahayd islaan da'deedu ay 100 kor u dhaaftay oo waayeela. wax dadana kalidii bay lahayd. Kalthuum ibn al-Aqarri oo keliya ayay lahayd. waxay u tagtay Cabdilmalik ibn Marwan oo ah amiirkii muuminiinta. waxay ku tiri maanta waxaan kaa codsanayaa amiirow, wiilkayga Kalthuum ibn al-Aqarri ee aan anigu dhalay dadna aan kalidii leeyahay in aad wiilkaygaasi maanta ku hagoogato oo arrintaa lagu xukumay ee dilka iyo qoorgooyada ah aad ka badbaadiso. dabkuu ii balbaliyaayo kaasaan kalidii dadba ka eegtaaye labada indhood badam ha iga siino ha ii baktinina ninkaa maanta ii daabay tiri.
taasaan maanta gundaha ku haysta. cabdilmalik ibnu marwaan oo ah hogaamiyihii muslimiintu wuxuu ku yiri islaantii waayeelka ahayd ee dhashay kulthum ibn al-Aqarri wuxuu ku yiri xajaaj bin yuusuf ba isaga oo tixgelinaya runtii islaanta oo hadalkeeda aad u tixgelinaya oo maxaan ku raahday waayeelnimada ay leedahay eegaya oo da'deeda boqol ka dhaaftay ay damqayso ayaa waxa uu yiri waxaan u dirayaa fariin xajaaj bin yuusuf baan fariin u dirayaa kadibna waxaan oranayaa laba waraaqood soo qor mid waxaad ku soo qoraysaa yu'dam midna waxaad ku soo qoraysaa la yu'dam yu'dam macnaheedu waxa weeye ninkan qudhaa laga goynaya waa la dilayaa la yu'damna waxa weeye la dili maayo oo ninkaasi waa badbaaday labada waraaqood soo qor baan oranayaa buu ku yiri islaantii markuu xajaaj labada waraaqood soo qoro wiilkaaga labada warqadood loo geynayaa waa baqtiyaa nasiib labada waraaqood inta la laaba ayaa la oranayaa labada warqadood midna waxa ku qoran yu'dam midna waxa ku qoran la yu'dam mid hal dilaa ku qoran midna la dili maayo ku qoran marka mid dooro nasiibkaaga hadduu wiilkaagu doorto waa la dilayaa ama yu'damta hadduu doorto waxa weeye waa khaa'inal wadan oo waxa lagu xukumay xaq weeye haddii la yu'dam uu doortana waxa weeye waa nin lagu gafayo ma aha khaa'inul wadan oo uu badbaaday islaantii iyadoo murugaysan oo cagaha jiidaysa oo hoos u ooyeysa oo waxa weeye waxa la yaalo waxa yeesha aan garanaynin ay oo ilmadu maradeeda qoysay ayay iyada oo cagaha jiidaysa halkii ka dhaqaaqday oo aad iyo aad u warwarsan aadna u murugaysan nafteedana waxay u sheegtay islaantu in wiilkeedu maanta uu qabri madaxa kula jiro oo alla mooyee cid kale oo badbaadin karta haba yaraatee aysan jirin islaantii sidaasuu ahaa xaalkeedu kadib waxay u timid islaantii wiilkeedii markay wiilkeedii u timid ayaa waxa ay ku tiri wiilkeedii waryaa waanu tagay amiirkii baanu tagay amiirkii go'aankaasuu gaadhay labada waraaqood baa la qorayaa baa la yiri midna waxa lagu qorayaa hal la dilo midna la dili maayo tuu doorto waa nasiibkii marka kollayba waa ku dil aniga hooyo xaqayga kollayba labada waraaqoodba waxaan ogahay bay tiri islaantii xajaaj bin yuusuf inuu ku qorayo yu'dam labadaba yu'dam buu ku qorayaa si tii aad qaadataba lagu dilo waa run buu yiri hooyo soo arrintu halka ma maraysa ha aniga faraha iiga qad waa nin geesiya waa nin aftahana waa nin ilaahay maskax iyo khibrad siiyay waa nin ilaahay ku ilhaamin doona in uu arrintan ka badbaado hooyo soul sidaa maaha aniga faraha iiga qaad buu waayahay bay tiri islaantii arrintaa xalkeeda aniga hayay ii daabuu ilaahay baan la kaashanayaaye ku hungoobi mayne isug hooyo wuxuu tagay madashii looga yeedhay meeshii looga yeedhay halkii looga yeedhay ee madaxtooyadii buu tagay labadii waraaqood baa lagu yiri warqada labada waraaqood midna waxa ku qoran yu'dam midna waxa ku qoran la yu'dam cabdilmalik ibn marwaan amiirkii meesha waa fadhiya hase ahaatee labada waraaqood ba xajaaj bin yuusuf wuxuu ku qoray yu'dam tii uu qaataba loo dilo nin iswaabshaba waabiyaa helay nin kastoo maskax wanaagsan nin kastoo khiyaamo iyo maxaan ku raahdaye fakar badan nin ka sii daran baa jira nin ka horeeya ayaa jira haddaad istiraahdo dadka adiga u horeeya waxa jira dad badan oo ka khibrad iyo waayo aragnimo iyo garasho iyo xeel badheer baa jira marka kulthum ibn al-Aqarri labadii waraaqood baa la soo hordhigay isla markiiba xabad buu saa u qabtay oo uu liqay labadii waraaqood midkood ayuu markiiba intuu afka geliyay liqay oo uu calaliyay dabeetana waxa argagaxay cabdilmalik ibn marwaan oo yidhi waa sidee kulthum ibn al-Aqarri markaasuu yidhi amir wax kale maaha waxa weeye warqada aan liqay iska dhaaf warqadan soo hadhay taa aan liqay cagsigeeda weey warqada aan liqay wixii doonaa ha ku qornaada buu warqada aan liqay waxa weeye ta soo hadhay waa warqadan soo hadhay baa markhaati ku ahoo haddii warqadan soo hadhay ay ku qoran tahay yu'dam hal la dilo waxaan liqay buu yiri tii yaan la dilin tii baan liqay buu hadday warqadan soo hadhay ku qoran tahay la yu'dam la dili maayana tii hal la diladii baan liqay buu dabeetana waa sax buu warqadii baa la furo waxa ku qoran la yu'dam markaasaa amiirkii iyo xajaaj iyo dadkii madaxweynta ahaa ee meesha joogay dhammaantood
iyo xukaamtii waxay xaqiiqsadeen sida uu ninkani dabinkii loo dhigay uu uga badbaaday ee uu u furfuray ee uu khibradda iyo waayo aragnimada iyo maskaxda uu ula yimid halkaasuu kulthum ibn al-aqarri kaga badbaaday dabinkii uu dhigay xajaaj bin yuusuf runtii waxay ahayd arrin qurgooyo ah waxay ahayd xajaaj wuxuu ugu talagalay maanta inay ahaato ninkaasi maalintii ugu dambeysay noloshiisa adduunka hase ahaatee alla kama dhigin waxaynu u soo qaadanay qisadan waxa weeye had iyo jeer madaxda dadyowga muslimiinta ah oo ay ku jiraan dadka Soomaaliduna ila inaguna muslimiinteenu ka mid nahay ay dadka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeedna ku jiraan had iyo jeer waa dad sidaa dabin isugu dhigaya oo aanu midna midka ka sareeya aanu ogolayn oo mid waliba uu doonayo inuu isagu kalidii meesha maxaan ku dhahdaa ku kaliyeysto waa wada tabtaasaynu nahay marka Kulthum ibn al-Aqarr sidaas uu uga badbaaday dilkii xajaaj bin yuusuf xeeladiisina halkaasay ku fashilantay sidaas waxa weeye noloshiisa intii u hadhay uu ku dhamaystay hooyadiina ay farxad iyo reereen iyo riyaa habeenkii ku seexatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin